Magacayga waa Dr. Naciima Adan Xuseen kuna takhasustay cudurrada ku dhaca haweenka iyo qalliinnadooda kana howlgasha isbitaalka Dalmar Specialistic and Teaching Hospital. Waxyaalo badan ayaa sababa hooyooyinka inaysan haysanin wacyigelin ama talooyin badan oo dhanka ka fahansan yihiin daawooyinka iyo hooyada uurka leh ay qaadanayso inaysan kala ogeyn iyo waxa kale oo sababayo daawooyinka inay ka qabaan daawooyinka qaar ra'yiyo kala duwan oo dadka bulshada ay ka aaminsan yihiin in daawadu saameyn u geysanayso hooyada ama ilmaheeda inay uurka ku jireen inay saameyn u geysanayso. Waxa looga hortagi karaa in bulshadii hooyooyinka in la wacyigeliyo aqoon kororsi badan loo sameeyo dhanka hooyada uurka leh marxaladaha kala duwan ee marayso uurka in loo sharaxo iyo mid kasta ku haboon iyo hooyada waqti kasta inay la xiriirto dhakhtarka u tagto iyo in hooyada daawada loo soo qoray si sax ah inta loogu sharaxo kadibna si joogto ah u qaadato lagula taliyo. Hooyooyinka waxa kula talinaa in si joogto ah dhakhtarka ula kulmaan wixii dhakhtarkii talooyinka iyo daawooyinka u soo qoray inay si joogto leh u isticmaalaan. Waxay ka caawinayaan daawooyinkaas hooyadii xaaladdeeda caafimaad haddii ahaan lahayd dhiig yari inay la soo kulanto haddii ahaan lahayd dhanka ilmaha oo looga hortagayo in ilmihii xilli hore ee dhashaan bilo hore ayagoo waqtigooda gaarin iyo hooyadii nafaqa darrada kale iyo ilmaha inay ku dhashaan miisaan yar oo kale waxyaalaha si looga hortago marka hooyada inay daawada qaadato. Daawada horta in la joojiyo qofka haddii inta daawada loo qoray loo birimo ama kooban markuu isticmaalo inuu u arko inuu caafimaaday saas darteed uusan u baahnayn daawada inuu sii wado qaarkood ka dhaadhacsan. Waxaa kaloo jirto in bulshada qaybeeda kala duwanaa in daawadii qof aan dhakhtar ahayn oo kale in daawada inta arko oo dhowr daawada waxa loo isticmaalo saameyn caafimaad dhanka hooyadii ama dhanka cunugii u geysanaysa taas oo kale inay u joojiyaan ama qofka inuu iloobo oo soo xasuusaninba daawo inuu qaadanayo waxyaalahaas keeni karo. Marka dumarka Soomaaliyeed waxa ku wacyigelinaynaa si joogto leh daawada inay u qaataan sababtoo waxay ka anfacaysaa xaaladda caafimaadka hooyada iyo ilmaha caloosha ku jira caafimaadkooda. Dalmar Specialistic and Teaching Hospital. Hiigsigeenu waa caafimaadkaaga.